dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya ayaa safaarad cusub ka furatay wadanka Malaysia. Safaaradan cusub ayaa waxay ku soo aadaysaa waqtiyo ay dhibaato kala gedisan ay kala kulmaan dadka Soomaalida ah sharciyada iyo waliba migrationada dalka Malaysia. Warbixin amurtan ku saabsan waxa inoo soo diray wariyahayaga Ahmed Abuukar Azari. ra'iisul wasaare ku-xigeenka dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya ahna wasiirka arrimaha dibadda iyo wafdi hogaaminayo ayaa dhawaan waxay soo gaareen caasimadda wadanka Malaysia ee Kuala Lumpur. wasiirka ayaa socdaalkiisa waxaa ku weeliyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Ahmed Xasan iyo madax kale waxayna kulamo la qaateen madaxda dowladda Malaysia uu horboodayo ra'iisul wasaaraha iminka talada haya Daatu Najiib. socdaalka shaqo oo wafdiga ka socda dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya ay ku yimaadeen dalka Malaysia ayaa ah wanaajinta xiriirka labada dal iyo sidii dowladda Soomaaliya ay safaarad uga furan lahayd dalka Malaysia maadaama Soomaalida ku dhaqan Malaysia ay dhibaato xoogan ay ka haysato dhanka sharciga. ugu horeen wasiirka ayaa waxa uu ka warbixiyay safaaradda cusub ay dowladda Soomaaliya ay ka furatay dalka Malaysia. safiir ayaa loo soo magacaabay meeshan safiirkaasi hadda ma joogo magaalada, wuxuu ku maqlay Australia, laakiin uu imaan doona the next 2 months, labada bilood soo socda ay howshiisa bilaaban doontaa. howlwadeeno kale ayaa jira halkan jooga oo iyana magaalada degan oo iyana loo magacaabay oo xilkaasi kala qayb geli doono. marka howshaasi fara kama qodna, laakiin imaatinkeennii iyo insha Allah xiriirka joogtada aan samayn doono ayaa safaaradii xoojin doonta. dadkan walaalaha aan meesha joogana iyana diyaar bay u yihiin inay gacan ka siiyaan safaaradda furitaankeeda waxay hagaajinaysaa xiriirka labada wadan. iyana inkastoo hadda wadankii xoogaa nabadgelyo la'aan ay ka jirto, in the future waxay muujiyeen in ay safaarad ay keensan doonaan ayaa dhici doonta haddii la yiraahdo. sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu kulan gaaban la qaatay safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Indonesia Mr. Alow iyo qaar badan oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Malaysia, wuxuuna ku baraarujiyay in dalka uu u baahan yahay iyaga safaaraduna ay ka qayb qaadan doonto la socodka xaaladaha kala duwan ee ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Malaysia. aad iyo aad waan ugu faraxsanahay in ay jiraan arday Soomaaliyeed oo xilligan adag aan ku jirno ay ku guuleysteen inay dhamaystaan waxbarashadoodii heer jaamici ahayd ama bachelor ama masters ku dhameeyay dibadda, iyagoo yacni wadankii burbur iyo dowlad la'aan ay ka jirtay muddo 20 sano lasoo dhaafay, iyagu ay ku guuleysteen inay gaaraan natiijo noocaas. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. wadankii waa u baahan yahay dhalinyaradaasi. wadankii maanta sidaad ogtihiin dadkii u shaqayn jiray way gaboobeen intooda badan, qaarna way iskaga tageen. waxa la yiraahdo shaqaale dowladeed oo hadda jira oo rasmi ah way yaryihiin. marka haddeer intaanu dowladda jirtay bishii July la magacaabay, waxaanu dirnay dhalinyaro badan oo jaamiciyiin ayaanu u dirnay wasaarad walba inay loo soo tababaro. wasaaradda arrimaha dibadda for example, wasaaraddeeda waxaan u diray 12 qof ayaan u diray Abu Dhabi diblomaasiyada sida loo soo baro maaragtay, si ay u noqdaan kaadirka soo socda ee wasaaradda u shaqeyn lahaa. waayo idinoo joogto meesha ilaa 10 qof oo iyagana tayadooda oo iska liidato. marka jaamiciyiinta maanta jira ee weliba afka Ingiriisiga wax ku bartay aad iyo aad baan ugu baahannahay. ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Ahmed Xasan oo waano iyo wacyigelin u soo jeediyay ardayda wax ka barata dalka Malaysia, wuxuuna shaaca ka qaaday inay danaynayso wasaaraddiisa ardayda ku takhasusta cilmiga la xiriira kheyraadka badda. dalka Malaysia soo horumarsiin ujeedaan inaad bari dalkeen horumarsaan idinkoo injineera iyo dhaqaatiir iyo maxay ahayd askar iyo wax walba isugu jira. aniga runtii odagtiin wasaaradda kalluumaysiga jooga waxaan aad u danaynayaa dhalinyarada inay cilmiga badda soo bartaan. marka cilmi aad u yar waa dalka Soomaaliya la fiiriyo aqoonta aan u leenahay aad u yar tahay. kheyraad badan badda ka buuxa sida batrool laga helaa, wax walba laga helaa, laakiin aqoonteeda ku yartahay muddo. dhammaan waxaan ku faraxsanahay sidii wax u socdaan. dhalinyarada aan arkay aqoontooda iyo dadaalkooda aad u fiican yihiin. dalkan wuu idin sugayaa mustaqbalka runtii dadka la sugaya waa idinka.
waa markii ugu horeysay oo dowladda kumeel gaarka soomaaliya ay safaarad ka furato dalka maleeshiya islamarkaasina wafdi caynkan oo kale ah oo ka socda dowladda kumeel gaarka soomaaliya ay yimaadaan caasimada waddanka maleeshiya ee Kuala Lumpur. tanina waxay daba socotaa xilli dhibaatooyin adag oo dhanka sharciga ah ay la kulmaan Soomaalida ku sugan dalka Maleeshiya. Axmed Abukar Hussein Azhari, TV-ga caalamiga Somali Channel TV, Kuala Lumpur, Malaysia.